kulanti wacan daawadayaal halkan waa dhaanka wararka kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka gaar ahaan khilaafka ka dhex taagan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble iyo xaaladii ugu dambeysay ee magaalada Muqdisho. Qodobada warka aan idinku soo gudbin doono waxaa ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax kuma qaban kariyo guruubo iyo kooxo gaar ah inay dabada ay la galaan aragtiyo gaar ah in ay raacaan waxba kuma qaban karaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida General Odawa Yusuf Raage taliyaha ciidanka xoogga dalka oo heegan geliyay qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga xilli shir jiraa'id uu ku qabtay magaalada Muqdisho. sidoo kale warka waxaan idinku soo gudbin doonaa afrimo isdaba joog ah iyo digniin loo dirayo mucaaradka oo looga digayo in qalalaasa ay ka kiciyaan iyo dagaal magaalada Muqdisho. sidoo kale warka waxaad ku daawan doontaan qoyska Muqtaar Robo Abu Mansuur oo u xiran dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ka hadleen wax karun ah warqadii ka soo baxday hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee ku aadneed in Muqtaar Robo la daryeelo caafimaadkiisana uu wanaagsan yahay laakiin ay cadeeyeen dambiga ay ku haystaan. sidoo kale warka waxaan idinku soo gudbin doonaa saacadii ugu dambeeyay ee maanta waxa Muqdisho soo gaaray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. imaantiga Muqdisho ee Dani maxay ka bedeli kartaa xiisadda ka jirta Muqdisho iyo khilaafka Roble iyo Farmaajo sidaas u arkaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer Muqdisho. qodobadaas ayaan warkaan idinku soo gudbin doonaa halkan waa dhaanka u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan. waa hagaag aan ku bilaabay warka taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage ayaa amar siiyay ciidanka xoogga dalka isagoo ku amray in heegan buuxa ay galaan waxaana uu sheegay in ciidanka aan loo ogolaan karin in ay raacaan garab gooni ah ama aragti shakhsi ah oo qof ay ku taageeraan isla markaana hawshooda qaran ay iloobaan waxaana faray oo amar uu ku siiyay taliyaha ciidanka xoogga Odawa Yusuf Raage taliyaasha kale ee ciidanka iyo sidoo kale askartaba in aysan raacin dana shakhsi ah ama aysan sidoo kale ku milmin siyaasadda oo qaabbeeleed ama qaab qabiileed aysan u shaqeyn ciidanka ayna kaliya gutaan waajibaadka ay u dhaarteen. taliyaha ayaa xubin kasta oo ka mid ah ciidankii uu kula shiray oo kulanka uu kula qaatay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya waxa uu sheegay in aan laga ogolaan karin in qof ciidan ah oo u dhaartay dalka inuu difaacayo in haddana uu gashto shaar qabiileed oo mar kale uu dagaal sokeeyo dalka geliyo. General Odawa Yusuf Raage ayaa waxa uu shir gudoomiyay kulan xasaasi ah oo looga hadlayay xaaladda taagan waqtigan ee la xiriirta dhanka amniga kulankaas oo ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya waxaana kulankaas shir gudoominayay Odawa Yusuf Raage halkaas uu kula hadlay saraakiil kala duwan. taliyaasha iyo saraakiisha uu la hadlay Odawa Yusuf Raage ee shirka fadhiya waxaa ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidankii badbaado qaran ee kal hore dib loogu celiyo furmihii ay ka soo baxeen waa bishii Abriil ee sanadkan aan ku jirno waxaana mar kale maalmahan soo cusboonaanaya warar sheegaya in mar kale badbaado qaran dib ay u soo laabanayaan waxaana shirka qayb ka ahaa saraakiishii hogaaminaysay ciidamadii badbaado qaran kuwaas oo si gaar ah ula dardaamaya Odawa Yusuf Raage ugana digaya in mar kale ciidankooda ay soo geliyaan gudaha magaalada Muqdisho qalalaasana ay ka sameeyaan. waxaan farayaa ciidanka xoogga dalka qaybihiisa kala duwan in ay u adeegaan dalka meel kasta oo ay joogaanna ay heegan buuxa oo dhameystiran ay u galaan sidii dalka nabad ay ugu soo dabaali lahaayeen wax dhib iyo sidoo kale dagaal ah aysan ka qayb qaadan iyada oo lagu sugnaanayo goobaha iyo xeryaha kala duwan ee ciidanka joogaan. waxaan farayaa taliye qaybeedyada in dhammaan ciidankooda ay heegan geliyaan sidoo kalena aysan u adeegsan karin dana shakhsi ah taliyihii ciidankiisa uu ka qayb qaato ama lagu arkay isaga oo qalalaasa horinaya talaabo sharci ah ayaan ka qaadi doonaa ayuu yiri generaalku ugu awood badan waqtigan ciidanka Soomaaliya ee Odawa Yusuf Raage. taliyaha oo sii hadlayay ayaa sidoo kale waxa uu saraakiisha faray inay ka fogaadaan wax kasta oo kala qaybin kara ciidanka gudihiisa ka digtoonaada in aad lumisaan kalsoonida buuxa ee bulshada ay idinku qabto taas waxa ay noo suurtagelinaysaa wixii aan ku dhaaranay inaan fulino ayuu yiri taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Raage kaasoo ka soo horjeeda in marnaba qalalaasa
iyo dagaal sokeeye dalka dib loogu celiyo. Waxaanu ahaa taliyihii ka shaqeeyey in uu kala dhex galo maalmihii lasoo dhaafay taagtaagii ciidan ee ka jiray magaalada Muqdisho, isagoo taliyo walba iyo ciidankiisa ku celiya halkii uu kasoo ruuqaansaday. Ugu dambeynna kulan degdeg ahaa oo ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga isugu yeeray halkaas uu kula dardaarmay. Hadalka General Oduwa Yuusuf Raage ayaa sidoo kale waxa uu ku soo aadayaa xilli waqti xasaasi ah uu ku jiro dalka, waxaana qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay hurinayaan dagaal sokeeye iyagoo doonaya in xoog lagu jiro ciidanka Villa Soomaaliya joogo, sidaasna looga saaro madaxweyne Farmaajo kursiga uu ku fadhiyo ee Villa Soomaaliya. laakiin arrintaas ayaa dad fara badan oo General Oduwa uu ku jiro waxay aaminsan yihiin inay tahay mid dhibaato dalka u sii horseedi karta kaliyana Farmaajo uga bixi kara Villa Soomaaliya in doorasho dalkan ay ka dhacdo. Hadalkan digniinta ah ee ka soo yeeray General Oduwa Yuusuf Raage ayaa waxa uu sidoo kale imaanayaa xilli maalmihii la soo dhaafay ciidanka badbaado qaran oo u badan militariga Soomaaliya ay inta badan gudaha u soo galeen magaalada Muqdisho, iyagoona qaarkood ku goodinayay in ay galayaan madaxtooyada halkaasna ay kasoo qabanayaan madaxweyne Farmaajo. waxa uuna ku celceliyay Oduwa in uga digayo saraakiisha ciidanka hogaaminaysa in ciidanka amar ay ku siiyaan in goobahooda iyo furmahooda dagaalka ay soo dhaafin, halkaasna ay kasii wadaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. dhanka kalena hadalkan ka soo yeeray Oduwa Yuusuf Raage waxaa aad u soo dhaweeyay madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, kaas oo sheegay in hadal dhaxalgal ah uu yahay hadalka ka soo yeeray General Oduwa. waxaan bogaadinayaa hadalka uu jeediyay General Oduwa Yuusuf Raage kaasoo ku aadan in ciidanka marnaba aysan ku milmin siyaasadda loona adeegsan dana gaara, ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya. Sheekh Shariif ayaa sidoo kale Oduwa waxa uu ku taageeray qaabka uu ula hadlay taliyayaasha kala duwan ee ciidamada hogaamiya, kuwaas oo faray in ciidankooda heegan ay geliyaan aysan ka qayb qaadanna qalaasaha ka dhalan kara siyaasiyiinta iska soo horjeeda ee siyaasadda isku haysta. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka mid ah siyaasiyiinta ugu degan ee waqtigan ku jira midowga musharaxiinta, waxa uuna Sheekh Shariif hore u sheegay mabdiciisa ku aadan inuu ka soo horjeedo in dalka dagaal sokeeyo uu ka dhaco mar kalena caasimadda Muqdisho lagu kala cararo. waxa uuna sheegay in taas beddelkeeda uu door bidayo in xaaladda si degan lagu dhameeyo dalkana doorasho ay ka dhacdo, qofkii ku guuleysta ee nasiibku helana sidaasi uu guuleysto una noqdo madaxweynaha xiga ee dalka Soomaaliya. intaas haddii aan uga gudbo hadalkii General Oduwa iyo taageeradii uu u muujiyay Shariif Sheekh Axmed, markana ehelada Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo dowladda u xiran ayaa waxa ay ka soo horjeesteen warqad ay soo saartay hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya ee NISA loo soo gaabiyo. warqadaas ayaa taliyaha NISA Yaasiin Faray waxa uu ku sheegay in Mukhtaar Robow uu nabad qabo, caafimaadkiisana uu wanaagsan yahay, xaaskiisa iyo ciddii kale ee dalbatay inay la kulantana ay la kulansiiyaan, waxbarasho jaamacadeed uu ku jiro, lacago fara badan oo ilaa $7,000 gaarayna bishii Robow kaliya ay ku baxdo. ha yeeshee Ibraahim Robow Cali oo ay walaalihiin Mukhtaar Robow ayaa waxa uu wareysi siiyey laanta afka Soomaaliga ee BBC-da, waxa uuna sheegay in warqadda ka soo baxday hay'adda NISA ay ku jireen waxyaabo been abuur ah, waxyaabaha qaarna ay run ahaayeen. Ibraahim Robow oo ah walaalka la dhashay Robow Abu Mansuur ayaa sheegay in muddo 3 sanadood ah aysan indhaha saarin walaalkood, cid booqatayna aysan jirin, caafimaadkiisana ay ka walwalsanaayeen. January 2019 ayaa aniga iyo xildhibaano inoola ogolaaday inaan aragno Mukhtaar, markaasna waxa uu ku xirnaa xarunta hay'adda nabad sugidda qaranka ee Habarqadijo. wixii intaasi ka dambeeyay maalin kasta oo aan booqo isdhahnaba waana la hor istaagay oo nalama ogoleen, ayuu yiri Ibraahim Robow oo ah wiilka la dhashay Mukhtaar Robow kaasoo wareysi siiyey laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. waxa uu sheegay in waqtigan caafimaadkiisa uu yahay mid wanaagsan, waa sida hadalku u dhigay, taasna ay run ku sheegeen NISA, laakiin aysan jirin in waxbarasho iyo sidoo kale lacag dheeri ah la siiyo Mukhtaar Robow. NISA ayaa waxay sheegtay in weli ay ku haysato dambi Al-Shabaabnimo ah Mukhtaar Robow maadaama hore uu ahaa hogaamiye ku-xigeenkii hore ee Al-Shabaab waa Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur, waxaana NISA ay sheegtay in ilaa iyo baaritaanada ay wadaan ay ka soo dhamaanayaan aan la soo deyn doonin Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo muddo waqtigan u xiran dowladda Soomaaliya gaar ahaan hay'adda NISA. ugu dambeyntiina
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waqti dambe ee galabta waxa uu soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana wararku ay sheegayaan in diyaar uu yahay inuu ka qayb galo shirka golaha wadatashiga qaran ee uu isugu yeeray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kaas oo lagu madalsanaa in la qabto 27 bishan aan ku jirno. sida xog hoose aan ku helnay madaxweynaha ayaa waxa ka soo horeeyay wafdi hordhaca kuwaas oo ay ku jireen mas'uuliyiin saraakiil ciidan iyo sidoo kale ciidamo ilaalo gaar u ah madaxweyne Dani. madaxweynaha Puntland ayaa hore u shaaciyay inuu diyaar u yahay ka qaybgalka shirka uu iclaamiyay ra'iisul wasaare Roble waxa uuna taageero ballaaran u muujiyay Roble bedelkiis Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si weyn ayuu uga soo horjeestay arrinkaasi. imaanshaha Muqdisho ee Saciid Dani wax badan kama bedeli karto siyaasadda isdiidan ee waqtigan ka jirta Muqdisho ay qabaan dadka sida weyn u falanqeeya siyaasadda Soomaaliya. ilaa kalsoon yahay ayaa waxa ay noo sheegeen in Saciid Dani uu mari doono dhanka mucaaradka laakiin waxa sidoo kale Muqdisho kula sugan madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo sidoo kale madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe kuwaas oo waqtigan dhexdhexaadin ka dhexwada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo khilaafkooda cirka oo isku sii shareeray. sidoo kale horey waxa mowqifkiisa u cadeystay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulcasiis Laftigreen kaas oo sheegay inuu taageersan yahay qaabka uu wax u wado iyo dadaalada uu wado madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. weli waxaan Muqdisho soo gaarin Axmed Madoobe oo isagana lagu wado in maalmaha soo aadan uu Muqdisho ka soo dego si halkan madaxda wadatashiga qaran ay shir guud ugu yeeshaan. waan arki doonaa wixii ku soo kordha arrimahaas halkaas ayaan doonayaa inaan kusoo gabagabeeyo waan arki doonaa wixii ku soo kordha intaas ayaan doonayaa inaan kusoo gabagabeeyo warka waad ku mahadsan tahay daawashadaada haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro si had iyo jeer aad ula socotid wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka halkan waa Dhaanka Wararka. waxaan oo wanaagsan daawade meel walba aad joogtid ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka oo xiliyadan oo kale aad ka daawatid Marcadda Show. qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doona waxaa ka mid ah in ka badan 600 oo basaasiin oo lagu daadiyay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. khilaafka cusub ee u dhexeeya mas'uuliyiinta Istanbul iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkiga maxay tahay sababta basaasiinta intaas la eg loogu daadiyay xaafadaha kala duwan ee magaalada Istanbul. dagaalada ka soconaya waqooyiga Itoobiya oo soo laba kacleeyay jabhadda TPLF oo dagaalo kale ku baaqaysa wadahadallada Mareykanka iyo Kenya ee ku aadan xaaladaha Soomaaliya iyo Itoobiya iyo kulanka madaxweynaha Falastiin oo gurigiisa kula yeeshay wasiirka gaashaandhigga Israa'iil. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan kugula wadaagi doonaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka. mar kale ku soo dhawow Marcadda Show ka dhiiba aragtidaada qodobka ku soo jiita la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay. waxaan ku hormari doonaa dalka Turkiga. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Turkiga Suleyman Soylu ayaa eedeyn aad u culus wuxuu u jeediyay duqa magaalada Istanbul waxaana uu ku eedeeyay in ilaa ku dhawaad 600 oo basaasiin ah horeyna uga soo shaqeeyay ciidamada qalabka sida uu ku daadiyay magaalada Istanbul islamarkaana ujeedada loogu daadiyay magaaladaasi ay tahay inay fuliyaan shirqoolla dilal ah oo lala beegsanayo culimada ganacsatada iyo siyaasiyiinta ku aragtida ah madaxweynaha dowladda Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. dabcan taasi waa warka guud ee muuqda balse warka qarsoon waa in uu jiro loolan siyaasadeed ama dagaalka lafajabiska ah ee ka dhex jira labada kooxood ee ugu awoodda badan siyaasadda dalka Turkiga kuwaasi oo kala ah koox aaminsan in Anadol ama Turkiga uu yahay dal ay leeyihiin muslimiinta waxaana ka mid ah kooxdaasi Suleyman Soylu wasiirka arrimaha gudaha oo ku xisbi ah madaxweynaha talada haya Rajab Tayyip Erdogan iyo kooxda Ikram Imamoglu oo aaminsan in Anadol ama Turkiga ay tahay milkiyad ay leeyihiin masiixiyiinta waajibna ay tahay in laga eriyo muslimiinta sida magaalooyinka Ankara, Istanbul, Diyarbakar iyo dhammaan magaalooyinka kale ee waaweyn ee ku yaala dalka Turkiga. kooxda Ikram Imamoglu iyo kooxo kale oo loo yaqaan 10 December ama 10 December ee shuuciga ah ayaa horay ugu midoobay sidii muslimiinta looga eri lahaa dalka Turkiga marka xukunka ay la wareegaan. sidoo kale ujeedada asaasiga ee loolanka labada koox ee aan kor ku soo xusnay waxa uu yahay doorashada soo socota ee lagu wada inay Turkiga ay ka dhacdo sanadka 2023 oo lagu go'aamin doono in muslimiinta ay sii haysan doonaan awoodda maamulka ee dalka Turkiga ama in kooxda Ikram Imamoglu iyo xulafadiisa ay xukunka ay la wareegi doonaan kana dhabayn doonaan eriyada muslimiinta.
falanqeeyaasha qaar waxay aaminsan yihiin in howlgalka amni ee uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha looga gol leeyahay sidii duqa magaaladaasi istanbul master imaam oglo oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dalka turkiga looga carqaladayn lahaa inuu wax saameyn oo ku yeesho doorashada lagu ballansan yahay sanadka 2023. dhanka kalena fiidnimadii axadda wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda turkiga ayaa ku dhawaaqday inay bilowday ololo kormeer ah oo ballaaran oo lagu beegsanayo boqolaal ka tirsan shaqaalaha dowladda hoose ee magaalada istanbul ama shirkadaha u shaqeeya dowladda hoose ee istanbul. war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay in boqolaal shaqaale oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ama gacansaar ay la leeyihiin ururada argagixisada turkiga u aqoonsan yahay gaar ahaana kooxda BKK baaritaano lagu sameynayo. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda turkiga Suleyman Soylu wuxuu ku nuucnuucsaday maalintii Isniinta in arrintaani ay tahay mid amni wax siyaasad ahna aysan shuqul ku lahayn, isaga oo tilmaamay in la xaqiijiyay in ay jiraan dad ka shaqaynaya goobo xasaasi ah oo ku yaala degmada Istanbul oo lala xiriirinayo waxa loogu yeeray argagixisada. sidoo kale waxaa dhowaan ciidamada dowladda turkiga laga saaray dhowr askar oo loogu shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin ururadaasi. duqa magaalada istanbul Ekrem Imamoglu ayaa ka jawaabay tallaabadii ugu dambeysay, waxaana uu yidhi horey waxaan u sheegnay qofna ma dulmin doono mana oggolaan doono qof in uu cuno xaqayaga. maanta waxaan kaloo aan leeyahay waxaan garab taagannahay dhammaan 86,000 ee shaqaalaha dowladda hoose ee magaalada istanbul mana oggolaanayno in la dulmiyo. maalintii Isniinta Imamoglu ayaa weerar ku qaaday wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda turkiga Master Soylu, isagoo sheegay in ololaha ka dhanka ah shaqaalaha degmada istanbul uu leeyahay cabiro siyaasadeed, ujeedkuna ay tahay in uu ka farxiyo madaxweyne Erdogan iyo in la bedelo ajandaha dalka oo ay ka cabanayaan dhibaatooyin dhaqaale, iyadoo la tixgelinayo in degmadiisa aanay wax dhibaataa ku qabin kormeerka amni haddii aan la siyaasadaynin. siyaasiyiinta iyo saxafiyiinta ku dhowdhow xisbiyada mucaaradka ee dalkaani turkiga waxay ka digeen in go'aanka wasaaradda arrimaha gudaha uu hordhac u yahay ku dhawaaqista maamulka iyo magacaabista duqa cusub ee dowladda hoose ee magaalada istanbul, taasi oo la mid ah tii dowladda ay ku samaysay degmooyin dhowr oo ku yaala koonfurta, bariga iyo sidoo kale bartamaha dalkan, kuwaasoo lagu eedeeyay inay taageero ay siinayaan ururada argagixisada. xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee talada dalka haya ayaa u arka in la dumiyo isbahaysiga mucaaradka ee ummadda inay tahay dariiqa ugu gaaban ee uga guulaysan karaan doorashada soo socota ee 2023, wuxuuna si gaar ahaaneed diiradda u saarayaa iska horimaadyada ka dhex jira isbahaysigan, gaar ahaana xisbiga wanaagga iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka kurdiyiinta oo khilaafyo badan ay ka dhex jiraan. labada xisbi ayaana isku khilaafsan inay isku raacsan yihiin inay doortaan hal musharax oo ay ku midaysan yihiin, kaas oo Imamoglu doonayo inuu u noqdo musharaxa matalaya doorashada 2023, balse ololaha cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa laga yaabaa inay sii kala fogeyso xisbiyada mucaaradka, sababtoo ah haddii dowladda ay badasho ama dowladda hoose duqeeda laga qaaday xilka waxaa meesha imaanaya dhibaatooyin iyo fadqalooyin kale, iyada oo lagu eedeyn kara dembiye inuu ka geystay magaalada istanbul muddadii talada u hayay. sida ayaad u aragtaa go'aankan? qaybta hoose aragtidaada ku reeb, aad baad u mahadsan tahay. markaana aan eegno madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta iyo xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Antony Blinken ayaa isku afgartay in si degdeg ah loo joojiyo colaadaha ka jira dalka Itoobiya. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo Antony Blinken waxay isku afgarteen baahida loo qabo in si degdeg ah loo soo afjaro colaadda ka taagan dalka Itoobiya, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya, waxaana intaasi la sii raaciyay qoraalka ka soo baxay wasaaradda. Uhuru iyo Blinken waxay gaareen heshiis ku aadan sidii loo joojin lahaa colaadaha Itoobiya. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price bayaan uu soo saaray habeennimadii xalay waxa uu ku sheegay in Uhuru Kenyatta iyo Blinken ay ku heshiiyeen in Itoobiya ay ka jirto sahayda gargaarka bini'aadanimo oo aad u yar, loona baahan yahay in la joojiyo xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha. Antony Blinken dhowr jeer ayuu tagay magaalada Nairobi ee dalka Kenya intay socdeen colaadaha iyo dagaalada ka soconaya gudaha dalka Itoobiya. Mareykanka ayaana si weyn u taageersanaa dhinacyada ka soo horjeeda xukuumadda uu hogaaminaya Abiy Ahmed, balse guuldarrooyin isdabajoog ayaa dhabarka loo saariyey wixii ka dambeeyey markii diyaaradaha dagaalka ee Turkiga iyo kuwa kale ee Iiraan iyo China ay ku biireen dagaalka. xiisadda Itoobiya weli way taagan tahay, dagaalo ayaa lagu warramaya inay ka dhacayaan gobollada waqooyi deegaano dhaca. dagaalku wuxuu ka dambeeyey kadib markii TPLF oo soo laba kaclaysay taageerana ka helaysa Oromada ay weeraro ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan xadka Canfarta. waxaa kaloo lagu warramaya dagaalka ugu xogan in nimanka uu ka dhacayo gobolka Benishangul. waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa markana. sida ay baahiyeen wakaaladaha wararka ee dalka Turkiga iyo maamulka Yuhuudda Israa'iil, madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas Abu Maazim ayaa booqasho ku tagay guriga uu degan yahay wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Benny Gantz. waxay ka wada hadleen arrimo dhowr ah sida lagu sheegay macluumaadka.
wasaaradda gaashaandhigga israa'iil ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda twitterka waxay ku sheegtay kulankaasi in diiradda lagu saaray arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka rayidka soo gaaraya dhanka ammaanka iyo sidoo kale qorshayaal kale ku dhowaad 2 saac iyo bar ayaana lagu warramaya in shirkaasi uu ka soconayey guriga wasiirka gaashaandhigga israa'iil ee ku yaala deegaanka lagu magacaabo Rosh Hayaa'in. qoraal uu bartiisa twitterka soo dhiga Benny Gantz dhankiisa wuxuu ku sheegay in fiidnimadii xalay kulankan uu la yeeshay Maxamuud Cabbaas madaxweynaha Falastiiniyiinta inay ka wada hadleen hirgelinta arrimaha dhaqaalaha rayidka ammaanka iyo qodobo kale oo dhowr ah. kulankan ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ay socdeen dadaallo ay garwadeyn ka yihiin sirdoonka masaarida oo qorshaha qayb uu ka yahay sidii loo wanaajin lahaa calaaqaadka diblomaasiyadeed iyo kan ammaan ee u dhexeeya labada dhinac ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. falanqayntii guud ahaaneed waa naga intaa macluumaadkan kan xigay intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa anigoo Maxamed Ciise sidaa iyo kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee kusoo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaha dunida ee degal kasta. barnaamijkeenan waxaad ku dhageysan doontaan taliyaha 32 sano jirka ee ugu awoodda badan ciidamada Soomaaliya, safarka iyo dadaalka cajiibka ah ee uu ku gaadhay darajadani, iyo sidoo kale yaa awood u leh madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay ka amar qaataan ciidamada xoogga Soomaaliya iyo macluumaad kale ayaanu idiin soo gudbin doonaa. ciidanka xoogga ee dalka Soomaaliya waxaa hogaamiya madaxweynaha, waxaana mas'uul ay ka yihiin amniga iyo jiritaanka iyo xorriyadda iyo sharafta ee dalka Soomaaliya. taariikh ahaan ciidamada Soomaaliya waxay ahaan jireen kuwa ugu xoogga badan ee qaaradda Afrika. ciidanka Soomaaliya ayaa xilli ka mid ah xilliyada weyninkooda waxaa lagu magacaabi jiray inta u dhaxaysa 350,000 ilaa 400,000 oo ciidan ah oo diyaar ah. ciidamada Soomaaliya waxaa la aasaasay 1960kii, waana markii ay xorriyadda qaadatay Soomaaliya oo ay ka xorowday gumaystihii Ingiriiska iyo Talyaaniga. ciidamada Soomaaliya waxay ka koobnaayeen ciidanka badda, ciidanka cirka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo shaqadooda ugu horeysa ee ay qabtaan ay ahayd difaaca ee danaha dalka iyo xoreyntii ee dhulka Soomaalida, waxaana si fiican u dhisay oo taageerayay midowgii Sofiyeed, Talyaaniga iyo Mareykanka oo hub siin jiray. ciidamada Soomaaliya iyaga iyo ciidankooda sii tababari jiray dhinaca dhulka iyo cirka, balse 20 sano kadib ciidamada Soomaaliya ma lahan awood difaac oo cadowga ay kaga difaacaan dalka. kuwii hore ee ciidamada xoogga Soomaaliya ayaa duqoobay, qaarna dalka ayay ka baxeen, qaar badanna dagaalkii sokeeyaha ayay ku dhinteen. laga soo bilaabo dhismihii dowladdii ku-meel gaadhka ahayd, Soomaaliya waxay yeelatay ciidan yar oo gaadhaya 20,000. ciidanka maanta jira ee Soomaaliya ayaa ah kuwa difaacaya dalkooda iyagoon haysan tasiilaadka looga baahnaa inay helaan ciidamo qalab sida. maadaama dalku ku jiro dagaallo, lama dhihi karo ciidanku waa dhammaystiran yahay. wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo sidoo kale loo yaqaano wasaaradda difaaca ee Soomaaliya waa wasaaradda maamusha dhammaan hay-adaha iyo waxyada amniga ee qaranka, isla markaana gacanta ku haysa ciidanka qaranka ee waddanka Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya ayaa ah hogaamiyaha sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. sidoo kale wasaaradda gaashaandhiggu waxay mas'uul ka tahay isku dubaridka iyo diyaarinta siyaasadda ee ciidanka, isla markaasna waxay soo diyaarisaa khayraadka iyo maamulka dhaqaalaha ee ciidanka ku baxa. waddanka Soomaaliya wuxuu leeyahay 3 ciidan, kuwaas oo u kala baxa ciidanka dhulka, ciidanka badda iyo ciidanka cirka oo ah 3 rukun ee ugu muhiimsan. ciidamada badda ee Soomaaliya waa adeega ciidanka badda oo ah wax ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. ciidamada cirka ee Soomaaliya waa awoodda ciidamada cirka oo qayb ka tirsana ciidamada qalabka sida. ciidanka cirku waxay mas'uul ka yihiin ilaalinta hawada iyo
cirka waddanka soomaaliya. marka waddanka soomaaliya uu xorriyadda qaatay lixdameedyadii ayaa la aasaasay ciidanka cirka, waxaana hoggaanka ciidankaasi gacanta ku hayay duulihii ugu horreeyey cali mataan xaashi. si kastaba ciidanka cirka ee soomaaliya oo wakhti ahaa kuwa ugu awoodda badan geeska afrika ayaa burburay kadib sagaashameedyadii, waxaase dib loo soo nooleeyey sannadkii 2010. ciidamada ee xoogga soomaaliya waxaa maanta hoggaamiya jenaraal odawaay yuusuf raage oo ah 32 sano jir oo noqday taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya. si lama filaana madaxweynaha soomaaliya ayaa sanad gudihii xilal waaweyn u magacaabay odawaay yuusuf raage oo ka tirsanaa saraakiisha da'da yar ee ciidamada qalabka sida. waxaa taliyaha ciidamada lugta loo magacaabay 16 Agoosto 2019 kadib wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya madaxweyne farmaajo, taas oo beddel weyn lagu sameeyey taliyayaasha ciidamada qalabka sida oo dhan. taliyaha ciidamada xoogga soomaaliya ka sokow inuu yahay nin aad u dhalin yar, haddana wuxuu muddo koobani ku noqday xiddig ka dhex muuqda ciidamada xoogga soomaaliya. waxaana ugu dambayntii 32 sano jirkani odawaay yuusuf raage uu qabtay xilka ugu sarreeya ee ciidamada xoogga dalka. odawaay yuusuf raage oo ku dhashay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe sannadkii 1987, waxbarashada dugsiga hoose iyo dhexe wuxuu ka qaatay isla degmada aadan yabaal, halka dugsiga sare uu ka qaatay magaalada muqdisho sannadkii 2002 ilaa 2005. odawaay yuusuf raage ayaa ciidamada xoogga soomaaliya wuxuu ku biiray 15 bisha toddobaad 2007. isla xilligaasi waxaa tababar ciidan loogu qaaday dalka Uganda muddo 1 sano ah. waxa uu ku bartay shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ilaalinta madaxda ee dalka VAB Protection Course. markii tababarka uu soo idlaaday, isaga iyo dhalinyaro kale ayaa loo xil saaray in ay tababaraan ciidan cusub dalka Uganda oo la geeyey tababar, wuxuuna xilligaasi u qaadanayay 10 kale oo dheeraada. sannadkii 2010 ayuu dalka dib ugu soo laabtay isagoo xidigla ah, waxaana loo furay siminaar 45 cisho kaas oo ku qaatay dugsiga Hamadhowr ee magaalada Muqdisho. isla xilligaasi saraakiil uu ka mid yahay waxaa loo magacaabay taliyaal. waxa uu noqday taliyaha hurinta labaad ee ciidamada ilaalada madaxtooyada. muddo kadibna wuxuu noqday abaanduulaha ururka. odawaay yuusuf raage sannadkii 2010, 2011 iyo 2012 wuxuu ka mid ahaa saraakiishii ciidamada xoogga Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay xoreynta gobolka Banaadir iyo gobolka Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose, wuxuuna ku mutaystay in la guddoonsiiyo abaalmarino. sannadkii 2013 waxaa tababar ciidan loogu diray dalka Turkiga muddo 1 sano ah oo ku soo qaatay takhasuska ciidamada lugta iyo luuqadda. markii dalka uu ku soo laabtay waxaa loo dalacsiiyey darajada dhame, muddo kadibna waxaa loo dalacsiiyey darajada gaashaanle oo ku helay abaalmarin oo ku saabsan howlaha ciidanka. sannadkii 2014 wuxuu waxbarasho u aaday odawaay yuusuf raage dalka Turkiga, gaar ahaan kuliyadda dagaalka ee Turkish Army War College. waxa uu dalka u dib ugu soo laabtay sannadkii 2016. waxaa loo magacaabay taliyaha hurinta koowaad ee ururka 6aad ee ciidamada ilaalada madaxtooyada. sannadkii 2018 waxaa loo magacaabay taliyaha ururka 6aad ee ilaalada madaxtooyada Soomaaliya, waxaana loo dalacsiiyey darajada gaashaanle dhexe. 16 bisha 8 2018 waxaa loo magacaabay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana loo dalacsiiyey darajada sareeyo guuto. 22 bisha 8 2019 waxaa loo magacaabay taliyaha ciidamada militariga ee Soomaaliya, waxaana uu noqday taliyihii ugu da'da yaraa ee qabta xilka ugu sarreeya ciidamada militariga ee Soomaaliya, isagoo ahaa 32 sano jir. isagoo 3 sano jir ahaa
markii ay dhacday dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre wuxuuna muddo 3 sano gudaheed ah uu ku noqday taliye hurin ilaa taliyaha ciidamada militariga ee Soomaaliya ee ugu sareeya. kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal xogtan waxaynu ka eegaynaa dalka Itoobiya. waqooyiga dalkaasi Itoobiya dagaalo ayaa ka socda, gaar ahaan waxay dagaaladu ka socdaan xadka ay wadaagaan wadanka Eritrea iyo deegaanka Tigreega. sidoo kale deegaanada ay isku hayaan Axmaarada iyo Tigreega ayay dagaalo ka socdaan. waxaan sidoo kale eegi doonaa wakaaladda wararka ee Reuters warbixin ay soo saartay ayaa waxa ay ku sheegtay baaritaano ay sameysay in ay ku ogaatay macluumaad la xiriira in kooxda TPLF ay xasuuq iyo waliba dhibaatooyin kale oo ka dhan ah dad rayida ka geysatay deegaanka Axmaarada intii ay gacanta ku hayeen meelo kamid ah gobolkaasi. xogii ugu dambeeyay arrimahaas ayaynu eegi doonaa iyo halka uu wax marayo. waxaa dhinaca bidix fadhiya guulada dhifle isaga ayaa bal inoo faahfaahin doona ama inaysan doona faahfaahinta halka uu wax marayo. guulad soo dhaw. aad baad mahadsantahay saaxiibka Kacase. daawadayaasheena oo salaamaya meel walba ay nagala socdaan oo barnaamijyadeena ka daawadaan. aad baad mahadsantahay. Itoobiya waan ognahay dagaaladii waa soo laba kacleeyeen. maxaa u dambeeyay bal aan aadno halka iyo xadka ay wadaagaan deegaanka Tigreega iyo Eritrea oo aan muddo wax laga soo sheegin hadda dagaalo ay ka socdaan. xagee see wax bilowd magaalada Rama ee ku taal xuduudda kala qaybisa dalalka Itoobiya iyo Eritrea ama si kala daan u yiraahdo xadka kala qaybiya Tigreega iyo Eritrea yaa dagaalo culus oo aan waxba la isu reeban labada dhinac ku dhex marayaan sida ay tabinayso warbaahinta maxalliga ee dalka Eritrea iyo sidoo kale tan gudaha Itoobiyaba. dagaaladan waxay soo bilowdeen maalinimadii shalay ahayd gelinkii dambe, waxayna ku bilowdeen si teel oo duqeymo la isu geysanayay oo hubka culus la isweydaarsanayay. markii dambena waxaa la leeyahay dagaal foolka foola yaa deegaanka Rama iyo hareeraheedaba ku dhex maraya ciidamada Eritrea iyo sidoo kale ciidankii kooxda TPLF-ta ee dib loogu celiyay deegaankooda. waatii aan ogeyn oo markii dib looga soo saaray xoogagan TPLF-ta deegaanadan Amxaarada iyo sidoo kale Canfarta, isla markaasina ay dawladdu ku baaqday in xuduudda lagu ekaado ay gudaha isku aruursanayeen TPLF-tu. marka weligeedba waxaa jirtay dhankan Eritrea markii la aaday galbeedkaba ciidankan Eritrea kama aysan dhamaanin dhulkan Tigreega. markii dawladdu ay tiri ama dawladdu ay ka soo baxdayba gobolka Tigreega, heer galbeedka iyo dalalkan ay ku baaqayeen in guud ahaanba Tigreega laga baxo. maqala iyo hareeraheedii Aksum iyo magaalooyinka waaweyn ee Tigreega way ka baxeen, laakiin dhulkan galbeedka difaacyo adag bay ka sameysteen oo horaantii bilowgii markay Tigreegu dagaalka dib u bilaabayeenba waa kuwii dhowr jaha dagaalka ku qaaday ilaa 3 jaha meelahaas ku qaadeen. ciidamada dawladda way ku qaadeen weerar si cararayay oo ay si baacsanayeen. kuwii Tigreega kuwii Eritrea iyadana way ku qaadeen, dhankan Canfartana way ku qaadeen. marka sidaas bay weligoodba ugu sugnaayeen ciidankan Eritrea galbeedka gobolka Tigreega. Rama iyo deegaanadan xuduudda dhaca marka hadda dagaaladan cusub ee ka soo cusboonaanaya lama yaqaan wajigay leeyihiin iyo ujeedka laga leeyahay iyo cidda sida rasmiga u bilowday toona. laakiin waxaa la og yahay kaliya in dagaalo culusi ay TPLF iyo sidoo kale ciidanka Eritrea ay ku dhex marayaan. sidoo kale waxaa la og yahay in qaan badan ay ku kala maqan labada dhinac waa Eritrea iyo TPLF-ta. marka ma argosiba ma group kale oo cusub oo ay Eritrea bilaabi rabto oo TPLF-ta ka dhanaba ma nimankan Tigreega ee gudaha Tigreega lagu soo wada celiyay ee awoodoodii ay bahashi ku aadeen Addis Ababa iyo deegaanka Amxaarada dib loogu soo celiyay deegaankoodii yaa isbiday awood oo weerar hadda ku heerkaasay lama yaqaan. laakiin meeshaas dagaal culus oo markii hore madaafiic ku bilowday markii dambana ballaadhay oo si adag ay u dagaalameen dhinacyadu welina ilaa hadda socda yaa ka soconaya. halka kaliya kuma ka jaha kale oo cusub oo shalayna wararkeena aan ku tabinaynay oo deegaanka Walkeeta ay ku muransan yihiin Amxaarada iyo sidoo kale Tigreegu iyaguna dagaalo culus baa ka socda. khasaaraha rasmiga lama oga, laakiin meesha
wax adag baa ka dhacay oo jiribka la isu laabay marka maamxaaradii lahayd kama hadhayna TPLF iyada laftirkeeda meeshan gulufka ka wada lama yaqaano bis TPLF tii meeshan difaaceedii ugu adkaa ka diyaarsanayso meeshan jiribka dhigtay oo nimankii dawladda iyo ciidankii amxaaradii iyo canfartii wixii isdaba socday yaa meeshan lagu hor istaagaya iyadana war looma hayo laakiin xudun khilaafaad oo aan xal loo haynin oo mar walba dagaaladeedu soo laalaabtaan oo dhul lagu muransan yahay weeyaan deegaanadani hadda ay dagaaladu ka socdaan dhanka amxaarada xuduudeeda markii la eego وهاجك أيضا ما سنتهي وكالة ورك رويترز وربحين أي دابع عضي وحي كوشك تين بارتانا أي سمايسة أي كوجة إن كوحدة TPLF أي ضد الريدها كل شيء واحد قدبيو ضمر اللايك والله كوسدي ضد حوي ريدها أو سمارتي كم أما مرت كسر لودلي أي شيء تيجي أنك أحمر هذا و TPLF أي أرنتن وحوي كدم بيسي بالحكتن ساي وحول عنها كيف كدعد حكتن هذا رويترز قريسو aan dib u yara dhigtay tikreegu hadda markay deegaanka amxaarada ka soo baxeen wixii laga filayay inay ka sameyn doonaan kama wada sameyninba aadiyeed muxuu waxa la islahaa nimankan markay jabaan ee deegaanadan ka laabtaan hal wax oo taagan kama tagi doonaan wax walba agta marin doonaan laakiin ma dhicin taas saadaasha iyo dadka falanqeeya arrimaha Itoobiya ee u dhunduleela ee colaadan heerkii gaarsiisan tahay sida dhabta xoogaalka ugu ah ee deegaanadii ku sugan waxa ay bixinayeen ay ka cabsi qabeen iyo waxa Reuters sheegayso waa laba aad u kala fog walow dad la xasuuqay oo ay yaryaraysa ayna lahayn hadii 10 qof la dilo hadii 20 qof la dilo hadii 100 qof la dilo iyo hadii kumanaan la dilo waa un binaadan dhintay xasuuq waa xasuuq cidi geysatayna dambi u begeysatay laakiin waxa hadda dhacay ee ay Reuters ka hadlayso magaalada lagu magacaabo Nefes Mecho waxa lagu arkay xabaal wadareedyo dad fara badan oo lagu aasay meesha si madax banaan iyo Reuters magaaladan kaligeed waxay ugu sameysay warbixin waxay ugu sameysay baaritaan madax banaan oo iyada iskeeda waxayna ku ogaatay in magaaladani lagu dilay dad fara badan oo dumar iyo caruurba ay ku jiraan xabaalo wadareedkiina way dul istaagtay oo way soo sawirtay markay inta sameysay Reuters waxay xiriir la sameysay kooxda TPLF mas'uuliyiintooda jawaabtay ka heshay waa mid jawaabtay ka heshay waa mid la yaab leh Getachew Reda ninkii waayaha badhuumanay yaa la wacay oo la weydiiyay bal xasuuqan iyo waxan meesha ka dhacay xabaal wadareedkan isagoo jeesaya iyo wuxuu yiri maadaama aanu dagaal ku jir dad fara badanna aan hogaaminaynay ma qaadi karo mas'uuliyadda doqon kasta oo dagaalyahan ismooda waa wax la yaab leh waa nin mas'uul ah oo ururkan hogaaminayay oo afayeenkoodii ah oo wuxuu ku hadlay ururkii uu ku hadlay dad la xasuuqay iyo xabaalo la dul istaagay iyo wax la soo xaqiijiyay baana loola tagay طبعا كاستو دغاليها نسموده انا مسؤوليتي ما قادي كرنا نغا gacantana ku baxay macnaha weeye dadka sida baalay dagaalka iska soo daadanaya macnaha ee tababaran haysan ciidanka ee iska soo galay hadii aan anaga madax qaadno macnaha anagu mas'uuliyadda qaadamin waba ku kaaba jawaabta la bixiyay waa taas in dhacday adeed ta sababtan ku leeyahayna meeshan in wax intan ka badan ay ka sameeyaan oo meedka laba aas waayo yaa laga filayay nimanka faqalkooda aan aqaana niman garaaba ma adeed khalad iyo sax waxay ku jiraan wala saxay iyada tooda saxan marka Itoobiya maamulayeen 27 sano ay xukunka hayeen propaganda horta wax ku gaaray ma jir si fiican waxa ay soo diyaariyaan ay suuqa soo galiyaan waxay kaaga dhigay ilaahu muubeenta adduunkana ahaado run waxa ku xasuustaa waxaan xasuustaa adoo cabdi ilay oo gaalada iyo islaamka hal mid ka dhigay wali ma daawad iyaga ku soo shubay maxaa gaalada idiga galay buu ku leeyahay markuu leeyahay ba ilaahu gaalada ilaahay ba gaalada iska leh maxaa idiga galay yaani waxaad moodi iyaga dadka xitaa tababareen haday yiraahdaan xitaa diin baanu ka hadlaynaa
diinna hadda hal xaba kama yaqaanaan waxaad moodi mufti islaam oo fadwoonaya aad iyo aad waa waxa ay ku soo shubeen waa iyaga dhaqankoodii marka nimankani meel ay joogaan hadday dadka oo dhan dhameeyaan waxay kaaga dhigi maxaan ku idhahdaa dadkan inay khaldanaayeen bay kaaga dhigi haddii ay adduunka dhanka kale ka soo rogaan waxay kaaga dhigi inaysan maxaan ku idhahdaa inay iyagu wax soo hagaajiyeen oo ay soo dhiseen si fiican waana sababta hadda deegaankeena markaad fiiriso deegaanka Soomaalida marka cabdi inay joogay haddaan been iska ilaaliyo waxa uu dhimanaa oo inaynu TV-yada ka daawana dhimanaa booyada caano oo dhulka lagu shubayo oo la leeyahay caanaha wax isticmaalaan la waayo saasa dhulka loogu shubayo ya inta bisa dhimanay waxa kale oo dhan meesha hadda baahida loogu dhimanaya aan qayliyayna la leeyahay oon baa loogu dhimanaya lama sheegi karin xitaa markaas iyagoo dhibic biyo aan haysanin ee waxay dhihi jireen wabiyo malaba oo Cabdi Maxamuud Cumar noo soo jeexay TBL ya meesha noo mara aad iyo aad markaan waxaan u malayn afka waxa loo marin jiray xayd si loonka iyo maxaan ku raay caca yar looga baabi'iyo niw meela green oo biyo qulqulayaan way soo sawiri jireen maceel ay meel ka qodeen oo ay 12 bilood biyo ku shubayeen oo in yar oo beeraha 100 talaaba biyo soo sawiri jireen mooyi laakiin iyagu hadda waxay damcaan nimankaas way ku maransiin hadda xasuuqan ay geysteen laga wareystay waa kan inta ay kaga jawaabeen dadkiina xawaalahoodii iyo maxaan ku idhahdaa marag madoontoodii waata waa muuqataa waag aad ma santahay oramada aan jabhadii oola iyadana warba ka soo baxay dagaalay dawladda la gashay inkastoo aysan caana badnayn intooda badanna ay waxyaabo badan ay sheegtaan in magaalooyin ay qabsadeen haddana wax horumar oo la taaban karo oo inta badan ay sameeyaan ma jiro maxay iyagu ay leeyihiin jabhadii oramada dhowrka maalmood ugu dambeysay sidii hore ma xaalku isbedelay awood bay yeesheen awood bay yeesheen baabuur technical ay soo bandhigeen oo ay dawladda ka qabteen oo qoriyay saaran yihiin oo jiriska ku buufsan yahay oo balaaya ka dhacday marka nimankii ay inugu waday oo bootada iyo ciidan la tababarayo meel duur lagu hayo hadda hawshiina isbedeshay baad moodaa laba arrimood labadaba way sameeyeen hadda wararkii ugu dambeeyay aynu ka helayno deegaanka oramada iyo bishaagulba deegaano horta ay weerareen cagtay mariyeen baabuur technical ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oramada ee ka qabsadeen sidoo kale waxaan arkay warshad sibirka sameeyay oo iyadana ay sidoo kale la wareegeen oo ay muuqaalo iskaga soo dhex duubeen marka intaas laga yimaado way ka talaabeen mar waa iyaga isku dayay canfarta ma loo tagan shay laakiin dib ay usaga ka qaldan ma dib ay u soo laabteen jahay wax ka khaldantay waa intii dhagaha lagu dhuftay dib u soo laabteen hadda waxay aadeen oo isdhahaan showaya roonta Benshangul Gumus maxaa ka dooneen ni aad sabab ma moodeen in xaga ka jirto dib waxaan kula jahada ka qaldantay marra canfar bay sideenay marra Benshangul Gumus nimankii Benshangul Gumus bay isu sidaayeen aadiya nimanka cawaanta ay Suudaan ka soo jeejeeday qaqawanay amxaarada leebka ku leeyin jiray ee isu sidaayeen waxay leeyihiin mataakal baan ka dagaalamayna dagaalyahanada jabhadda oola dawladda bay la dagaalamayaan mise Benshangul ma Benshangul jabhad bay leedahay laftirkeedu jabhadaas ayaanu iskaashanay dawladii baan weerar ku nahay oo saldhigyo ciidamada dawladda ay lahaayeen baan weeraray oo dagaal ay ka socdaan mataakal gobolka la yiraahdo ee Benshangul Gumus ka tirsan ee dhibaatooyinka badan ay ku soo laalaabteen yaanan hadda ka dagaalamayna waa say leeyihiin jabhadda oola maxaan ku idhahdaa gulufkeenana waan sii wadaynaa isballaarinteena waan sii wadaynaa deegaano horlana waan gaaraynaa caasimadina waan soo noqonaynaa ku dambeeya ku xigtaan malay aad ma santahay guriyada daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa qodobkan tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo bismillahi rahmaani rahiim halkan waa Shumis TV kusoo dhawo daawad wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka barnaamij wareedkan waxyaabaha aynu idinkugu soo baahin doono ee aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay kulamada oo ka wada magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor isaga oo la filayo inuu kulansiiyo madaxweyne Farmaajo iyo waliba ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kulamadaas iyo waliba halkay u marayaan ayaa daawan doontaan iyo xubno ka tirsan mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya oo isku dayaya inay baajiyaan qorshaha uu wado Qorqor ee ku aadan inuu kulansiiyo Roble iyo Farmaajo xiisadoodan xal u ka gaaro qodobadaas wixii nagu soo kordha
ayaan daawadayaal halkan idinkugu soo baahin doonaa oo aada daawan doontaan. waa hagaag aynu ku bilownay daawadayaal. wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur waxa uu shaaciyay in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uu ka qayb galayo shirka golaha wadatashiga qaran ee uu ra'iisul wasaare Roble iclaamiyay. wasiir Cabdulaahi oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii Axmed Qoorqoor kusoo dhaweysay garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in Qoorqoor uu u yimid ka qaybgalka shirkaasi. waxaan aniga iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan kusoo dhaweynay magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo u yimid caasimadda ka qaybgalka madasha wadatashiga qaran ee uu hogaamiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayuu qoraalkiisa ku yiri wasiirka amniga Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Nuur. shirkan waxaa si cad u sheegay inuusan ka qayb gali doonin madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen halka Qoorqoor iyo Cali Guudlaawe aysan weli cadeyn mowqifkooda ka qaybgalka shirkaasi. Axmed Madoobe iyo Siciid Dani ayaa horey waxay u ballan qaadeen inay ka qayb galayaan shirkan oo lagu waday in 27 bishan uu ku furmo Muqdisho balse dib u dhacay kadib markii khilaaf qarka u saaran gacanka hadal uu soo kala dhexgalay ra'iisul wasaare Roble iyo weliba madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. madaxweyne Qoorqoor ayaa kasoo duulay Dhuusamareeb oo soo gaaray Muqdisho welina ma cadeyn qorshaha safarkiisa marka laga reebo warka wasiirka amniga. sidoo kale waxaa jira warar sheegaya inuu isku dayayo dhexdhexaadin uu ka dhex bilaabo madaxweyne Farmaajo iyo weliba ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. tallaabadii ugu horeysay ee uu qaaday ninka lagu magacaabo Qoorqoor waxa ay ahayd in uu isku dayay inuu mucaaradka la shiro balse mucaaradka ayaa isku dayaya inay carqaladeeyaan qorshiisa. xogo yeeshay Shubis TV waxa ay sheegeen xubno ka tirsan midowga musharaxiinta ay bilaabeen olole karana madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo toos loogu tiirinayo garabka madaxweyne Farmaajo oo hadda xubnaha mucaaradka ay dhan uga soo jeesteen. xildhibaan Maxamed Abtidoon oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee laga soo doorto degmada Cadaadad ee Galmudug ayaa qoraal kooban oo bartiisa Facebook oo ku soo qoray waxa uu ku yiri golaha badbaadada Galmudug mardhow filo. madaxweyne Qoorqoor ayaa soo gaaray Muqdisho ha yeeshee mucaaradka badankood way diideen inay kulmaan si gaar ah Xasan Sheekh iyo weliba Cabdiraxmaan Cabdishakuur. waxaa sidoo kale xoog ku helnay in abaabulka dhana Qoorqoor ay mucaaradku ka bilaabeen deegaanada Galmudug waxayna doonayaan in meesha laga saaro madaxweynaha Galmudug oo weli ku jira safka madaxweyne Farmaajo. wasiirka hore ee amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa qoraal uu bixiyay magaca dhabarjebin qaran isagoo sheegay waa Qoorqoor ayuu u bixiyay magaca dhabarjebin qaran isagoo sheegay in badbaado qaran iyo weliba dhabarjebin qaran ay ku wada sugan yihiin magaalada Muqdisho. Fiqi oo qoraalkan soo dhigay bartiisa Facebook ayaa ciidanka iyo siyaasiyiinta badbaado qaran ugu baaqay inay ka digtoonaadaan dhagarta iyo weliba kala furfurka Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. badbaado qaran iyo dhabarjebin qaran caawa Muqdisho ayaa lagu wada sugan yahay. dhabarjebin qaran oo taageersan afgembiga sidee u noqon karaa nabadoon? waxaa waajib ah badbaado qaran inay ka digtoonaadaan dhagarta iyo kala furfurka dhabarjebin qaran. sababta keentay khilaafkan cusub waxaa saldhig u ah qalad ay doorashada ka galeen dhabarjebin qaran. sidee qaladkiisa uga nabadooninayaa ayuu qoraalkiisa ku yiri Fiqi. Qoorqoor ayaa la sheegay inuu isku dayay in uu kala furfuro midowga musharaxiinta iyo xukuumadda oo hadda u midaysan dagaalka Farmaajo isaga oo ka shaqeynaya sidii arintan xal looga gaari lahaa. madaxweynaha maamulka Galmudug ninka lagu magacaabo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sidoo kale toole casho waxa uu isugu yeeray xubnaha mucaaradka ah laakiin qaarkood ayaa diiday inay ka qayb galaan cashadaasi. xubnaha diiday waxaa ka mid ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajir ninka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo weliba madaxweynihii 8aad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. waxaa sidoo kale toole la ogeen sida uu wax yeeli doono madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ah mid ka mid ah xubnaha sida aadka ah loogu tiiriyay garabka madaxweynaha dalka Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Qoorqoor ayaa la filayaa maanta inuu la kulmo wasiirka koobaad ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo uu kala hadlo xaaladda sidii loo dejin lahaa. Roble iyo weliba Qoorqoor ayaa waxa ay yihiin dad isku fiican
oo aan xurguf weyni ka dhexeenin marka laga reebo inuu Rooble u arko Qoorqoor inuu yahay mid ka mid ah garabyada uu ku duulo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. kulanka Rooble iyo Qoorqoor waxyaabaha diiradda lagu saari doono waxaa qayb ka ah sidii xal looga gaari lahaa xiisadda ka dhalatay isqabqabsigii hareeyay arrimaha doorashooyinka ee markii dambe keenay inay isu guudiyaan labada mas-uul ee ugu sareysa dalka waa Farmaajo iyo weliba Rooble. Qoorqoor kulankaasi kadib waxaa la filayaa inuu madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo isna uu la shiro. labada dhinac waxa uu ka dhageysan doonaa waxyaabaha ay kala tabanayaan isaga oo intaasi kadib isku dayi doono sidii uu guuleysan lahaa inuu kulansiiyo si la mid ah 2 bilood ka hor markii ay isqabteen madaxweyne Farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare Rooble oo uu Qoorqoor labada dhinacba isu keenay walow aan kulankaasi wax heshiis lagu gaarin oo heshiiska uu ka dhashay kulan dambe oo uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareeninka lagu magacaabo. inkastoo howlahan uu u socdo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor dadka reer Muqdisho ay soo dhaweynayaan maadaama inay xabad dhacdo uu diidan yahay haddana mucaaradka oo arka Rooble inuu yahay linka ay dhex marayaan waxa ay ku qancinayaan ra-iisul wasaare Rooble inaan dheg jalaq u siin dalabaadka ka imanayo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor. waxyaabaha Rooble ay ku cadaadinayaan mucaaradka waxaa qayb ka ah inaanu la kulmin Qoorqoor oo aan caddayn mowqifkiisa ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaran iyo sidoo kaleeto leh haddii kulanka qasab ay noqoto aanay ka aqbalin haddii uu isku dayo inuu dhexdhexaadiyo isaga iyo weliba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. xubnaha mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kasta waxa ay isku dayayaan sidii u dhabarjebin lahaayeen qorshaha uu wado madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor intuu ku sugan yahay waxaa la filayaa howlihiisa dhexdhexaadinta inuu ku soo biiro madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe. labadooda ayaa la filayaa markan inay xal kama dambeysa ka gaaraan khilaafka ka dhashay arrimaha doorashooyinka ee u dhaxeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Rooble ayaa waxaa la filayaa in lagu qanciyo inuu yahay ninka dalka mas-uulka ka ah marka laga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo amnigeeda. Farmaajona uu yahay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday balse uu yahay qofka sharciyad u haysta inuu xafiiska sii joogo inta laga soo dooranayo madaxweynihii isaga bedeli lahaa. haddii uu Qoorqoor ku guuleysto howlaha u socdo oo uu isu keeno Farmaajo iyo Rooble waxa ay ku noqon doontaa nabar aanay weligood ka soo kaban doonin xubnaha mucaaradka oo har iyo habeen u taagan sidii ay talooyin u siin lahaayeen oo arrimaha go'aamada u gaaray geed fadhi uga noqon lahaayeen wasiirka koobaad ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. xubnaha mar walba taleefankiisa aanay ka bixin mucaaradka waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo xitaa qoraalada qaar ee uu soo saaro ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble dadka laga talageliyo qaybta ka ah. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo balse dad badan ayaa waxa ay rumaysan yihiin xitaa 5 cod wax gaaray inaanu heli doonin maadaama lagu bartay wax qarbudeed iyo weliba hanjabaado isdaba joog ah iyo burburin oo kaliya. doorashooyinka howlaheeda ayaa iyana waxa ay yihiin kuwo iska sii socda walow khilaafaad dalka uu ka jiro. Jubbaland oo u dambeysayna dhowr xildhibaan ayay soo dooratay waxaana ay ahaayeen xildhibaanadii u horeeyay ee ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo baxa dhanka iyo deegaanada maamulka Jubbaland. maamulada ilaa iyo haatan doorashooyinkooda la qaban waxaa ka mid ah Puntland iyo Hirshabelle. Puntland iyada xoogaa dhaqdhaqaaqay ayay wadaa waxaba ay soo bandhigtay ay habraacyada iyo weliba doorashooyinka inay qabanayaan laakiin Hirshabelle arrimahan weli xaggeeda maanay aadin. Koonfur Galbeed Galmudug iyo xubnaha ka imanaya dhanka iyo Somaliland ayaa horay dhowr xildhibaan u soo doortay ku dhawaad 30 ayay gaarayaan ilaa iyo haatan xubnaha la doortay ee ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal wararkeennii waqtigan waa naga inta